oday xasan cabdi rooble ayaa jawaab adag waxa uu ka bixiyey hadalla ka soo yeedhay qaar ka mid ah madax dhaqameedka beelaha laga tirada badan yahay iyo weliba qaar ka mid ah madaxda asxaabta qaranka Soomaaliland hadalladaasi oo ku taxalluqay gabadh la meherxaday oo ay iskaga hor yimaadeen laba reer taasoo ay mushkilad xoog leh ay halkaasi ka dhalatay oday xasan cabdi khayre oo maanta Bulsha TV la hadlay ayaa waxa uu sheegay halka kan anigoo ah xasan cabdi rooble oday Soomaaliyeed oo Somaliland dara waxaan doonayaa in aan laba eray uga jawaabo halka kan niman odayaalaha xalayto TV-yada meediyaha ka soo bandhigay hadal cabasho ah oo ay ka cabanayeen nin Somaliland dara oo gurigiisii loo gacan dhaafay oo gabadhiisii lagala baxay oo reerkiisii isaga oo nabad ugu dhaqan oo isagu ka mas'uul ah oo gurigiisa waliyo amar u ah iyadoo aan diin islaam la xeerin oo dhaqan la xeerin oo dadnimo kale la xeerinin oo cadaalad la xeerinin loo dhaafay gurigiisii oo gabadhiisii inta lala tigay oo lagala baxay oo khaleewo lala galay oo sharcigii islaamka ee inoo baneeyay inaan guriyaha dadka kale la gelin ilaa biistiidaan aan laga qaato mooyaane oo la yidhi laa tadkhulu buyuuta khayrikum ilaa istista'dinuuh idinkoo aan istiidaan lahayn marka waxa weeyaan gurigaa la galay ee reerkii ninkaa laga xaday ee gurigiisii loo gacan dhaafay ee caarkiisii khileewada lala galay ee lagu soo noqday la yidhi noo hibeeyo noogu ducee ninkaas bal waxa lagaga cabanayaan anigu la yaabay la leeyahay gaala hablihiina siisaan reer hebel haddaad tihiin annakana diin naguma siinaysaan diintu ma waxa weeyaan in ay u xalaalaysay ila dariiq bay diintu taqaanaayo xalaalaysay ma waxay xalaalaysay in reer dhan oo nabad soo hoyday la galo gurigiisii oo la xado oo la faraxumeeyo mise taasaa cadaalad ah oo waa kii uu odaygu lahaa annaka cadaalad iyo diintii baa nala ku fogeynayaa ma taasaa cadaalad wadeen bay u odaya oo aabaheeda nool oo u waliyo amar ah oo gurigiisii joogta oo masruufta oo dhaqda war markaa ninka kala baxsaday ee gurigii u dhaafay ee gacan dhaafka maxaynu u naqaanaa gacan tuuga u baxsatay oo waxaday goormay diin ku abtirsatay oo uu diintu u xalaalaysay marka waxaan leenahay suldaanka odayga ah ee muxtarimka ah ee halka hadallada ka soo jeediyay bal dib ugu noqo oo diintu waxay xalaalaysay iyo waxay xarrimtay ustaad barkhad waxaan leeyahay barkhadow xoghayaha cadaaladda wadaniyo nin dhalinyaro ah oo mutacallima baa tahay ninka rikoodhka cayda iyo aflagaadada jabiyeyna waa tahay ee aan cidi ugu tegaynin horaayihii sanadkana nin horaaye la odhan jiray oo reer burco ahaa ayaa rikoodhka cayda jabiyey 80aadkii iyo 90aadkii ninkaas badaalkiisii baad imanka tahayoo waxaa tahay ninka cayda ugu haysta Somaliland lagugumana haysto laakiin cadaaladdu dadka miyay u siman tahay mise nin bay la saaxiib tahay oo ay buunbuunisaa cadaaladdu miyaanay ahayn xaqsoorka ah ee naftaada iyo nafta kale miisaanka u samaysa ninka cadaaladda aad ku doodaysay aad leedahay cadaalad baa nala ka fogeeyey ma ninka wax dhacay ee wax haday ee wax boobay ee guri nin kale galay ee dadkiisii la baxsaday ee khileewada la galay baa cadaalada intaasaad cadaalad ugu doodaysaa oo aad leedahay waa cadaalad bal adigu dib isu daraasadeeyo dib u xisaabtanoo cadaaladdu siday dadka ugu qaybsan tahay iyo waxa ay tahay annaku cadaaladda waxaan u naqaanaa in la yidhi ajcalu maa baynakum wa bayna khayrikum miisaan aan dheeliyin u sameeya khayrkiina iyo naftiinna oo ha kula dheerayn qof bini aadam ah oo ilaahay abuurtay waxaana jeclayn in lagu yidhaahdo oo aan ku raalli gelin